La taliyaha madaxweynaha ee dowlad goboleedka Puntland ee arrimaha gudaha iyo sidoo kale amniga Cabdi Xirse ayaa waxa uu sheegay in deegaanada maamulkaasi Puntland ay joogaan ciidamo mashruucooda ay bixiso dowladda federaalk ee Soomaaliya. La taliyaha ayaa waxa uu dhanka kale uu sheegay in ciidamadaasi ay la howlgalaan ciidamada maamulka Puntland sidoo kalena qarashaadkooda ay bixiso dowladda federaalk ee Soomaaliya iyadoo isla markaana uu ku dhaliilay qarashka dowladda federaalk ay ku bixiso ciidamadaasi. Tirada ciidanka ku sugan deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa uu ku sheegay 1376 askar ah. La taliyaha ayaa waxa uu dhanka kale uu sheegay qaar ka mid ah ciidamadaasi in ay markaa ka howlgaleen howlgallada lagu difaacayo maamulka Puntland sidoo kale lagu difaacayo kooxaha Daacish ee ku sugan buuraleyda Calmiskaada. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka BSF-ta ayaa dhowaan kaalin weyn ka qaatay adkeynta amniga madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay caleemo-saarka ka dhacay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ee magaalada Laascaanood.